dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen allahu dhowr Somaliland dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen allahu dhowr ودرارتي للتاجي لدبي عالمكيني دلانكينو نبض كسادي ودرارتي للتاجي لدبي عالمكيني دلانكينو نبض كسادي وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكي سعيها وطني قدبتها العدور وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكي سعيها وطني قدبتها العدور Somaliland العدور الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على الشاهدين maanta oo ay taariikhdu tahay bishii 8 halka waxaan isugu nimi xubno ka tirsan ururka haldoor ee qarannimada Somaliland oo gudoomiyaheedina uu maanta halka nala joogo Aydaruus Maxamuud Yuusuf barnaamijka ayaanu maanta halka ku duubaynaa oo aanu kaga hadlayno arrimaha ama qadiyadaha Somaliland marka waxaan ugu horeynayaa waan ku soo dhaweynayaa abwaan Maxamed Yaasiin Cismaan ayaan ku soo dhaweynayaa فليتفضل أبوان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا أو إدين سيغاي أضي ربعدا صالح دبراني waxaanu nahay xubno ka mid ah ururka haldoor oo u taagan qarannimada Somaliland xubnahan doorkooda iyo shaqadoodu ma aha mid qabiil ma aha mid xusbi ma aha mid dangaara lagu doonayo ma aha mid xil lagu doonayo laakiin waxa weeyaan national issue oo ah sidii loo ilaalin lahaa qarannimada Somaliland ee looga ilaalin lahaa wixii meel ka dhac ku ah waxa kale oo nala jooga gudoomiye Aydaruus way badan yihiin xubnuhu gobolka Washington waxa ka jira urur weyn oo u taagan qarannimada Somaliland iyo la dagaalanka qabyaaladda laakiin sababta maanta aanu intan ama xubnahan tirada yar ee halkan u fadhiyaan ma aha inay dadkii ka soo wada qayb geli kari waayeen laakiin xanuunada jira iyo coronavirus-ka ayaa sababay aniga kulay halabuurka adigu ogeydeen halkan waxaan ku soo gudbinayaa gabaygaas waxa la yiraahdaa guhaad gabaygu wuxuu leeyahay haddii qoys gadaafooyin iyo gaadmo kala gaadho guuguuda hoose iyo haddii guuxu bixi waayo haddii ay colaad loo guntaday ay gondaha gaadho labadii isgarabsanayay ay godobi saamayso gumuc iyo garnayl baa dhex yaal
aanay garanayni hadba labada gacalnimo isdhida goonni kala gee haddii aan gargayr gaamurtiyo oday gorfaynaynin ama aan caqliga lagu galladay lagu gardaadsiinin goblan kama baxdo xaajo uu gabay raggeedii inta aan ka wada goomannahay badahan gawdiida ama ruux gefgalay geysh bedqaba godob u keenayo nimaan abidku gaasiri lahayn lagu gumaadayo inaan guul la soo taaban karin gacal walaalooba oo aad guhaad wada qabtaan garanba maysaan soomaalay gadaafaha qabiil wayna gaasiray anaa gubay anaa guuta dilay goor walbaba joogta guuldarrada sokeeyaha intaan gole ka faanayno oo godob xigaalkeen dhex taal soo gilgelanayno inaan guul la soo taaban karin gacal walaalooba oo aad guhaad wada qabtaan garanba maysaan gees kale haddii aan u dhigo way gun dheer tahay garnaq iyo haddaan idinla galo gogoldhig xeel dheer gumaystuhu markii uu ka tegey labada gooboodba geesaha anoon eegin oo gaado filanaynin gacal kala maqnaan jirayba waa hore u sii gaadha geesaha anoon eegin oo gaado filanaynin gurgurshaaga waataan ku raray galab carrawgii gacalkayow markaan garashaday meel isugu geeyey garbaduubka waataad mar qura ugu galluubteen markaan idhi waxbaa gaasiran oo waa guracan tahay gumaad iyo waxaan gaar u helay gaal shire u dhiib gabaahirta waatay noqdeen gobolladaydii geesiyaashu waatay baxeen geylan diriireedee inkastuu geyigu wada burburay gebi ahaantiisba go'aankaygu waatuu u dhacay gaar isaga taag geelu kala sancane waanigii gaydha maydhacay doorashaan isugu goodinaa waa ku guud mari nabad baan ku gabalaaxsannaa gees ilaa gees garawshiyo haddii aan maantana waxaan goobayaa waa isgarabyaale garawshiyo haddii aan la helin gogoldhig xeel dheer gasar baa ku dhacay oo dalkii gobolba meel aadiye gafuur culustu waa waxay xabsiga ugu guraysaa haddana waxaan u dhiibayaa gudoomiye caydaruus بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أنا مقعي عيدروس محمد يوسف وحنا قدوميها ururka Haldoor ee qarnimada Soomaaliland waxa aan marka hore isugu nimi inaanu kelmad ka nidhaahno xornimada 60 guurada ka soo wareegtay 16 Juun maalintii ay qaatay Soomaaliland xornimada insha Allah iyagoo abwaanka iyo hadii saaraxba iyaga dambeyn doonaan horta waxa aan yara sharxayaa ururka Haldoor qarnimada Soomaaliland iyo xubnihiisa ururka Haldoor waa xubno ka tirsan 8 xubnood aniga oo ah gudoomiye Caydaruus Maxamed Yuusuf gudoomiye xogeen Cabdirasaaq Nuur gudoomiyaha anshaxa Khadar Aar gudoomiye xogeenka anshaxa Yaasmiin Cali Xirsi afayeenka Cabdifataax Bikeeri xoghayaha Cumar Xasan xildhibaan Faysal Maxamed Filiid oo ah xubin kamid ah gudida anshaxa Cabdiraxmaan oo isaguna ah xubin kamid ah gudida anshaxa iyo xubnaha kale ee gudida kamid ah hadii badkeed leeyahay ururkani waxa uu taagan yahay waxqabadka qarannimada Soomaaliland talo tusaale iyo toosin isaga oo mar walba u taagan qarannimada iyo waxqabadka kolba halkii ay ka liicdo maaha urur qabiil ku salaysan waa urur qarannimo ku salaysan ilaahay idimkii markaa ka Haldoor ahaan waxa naga go'an in aanu anagu dhaliisha dhan walba ka toosino isna garab taagno qarannimada Soomaaliland mar labaad waa Caydaruus Maxamed Yuusuf waxaanu marka labaad gudagali doonaa hadii la yiraahdo kaalintii iyo xuskii aanu u nimi maanta oo ah 60 guurada ka soo wareegtay 16 Juun maalintii xornimada ay qaadatay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo in badan ku tiqtiqsan doono inoo sharxi doono rugcadaaga Saalax بسم الله الرحمن الرحيم halka waxa ka hadlaya Saalax Yuusuf Jaamac ku magac dheer Saalax Dabaraani halkan waxaanu isugu nimi xubno kamid ah ururka Haldoor ee qarannimada Soomaaliland waxaanu ku xuseynaa 26 Juun oo ah taariikhdii ay qaadatay Soomaaliland gobolada waqooyi
xornimadoodii 1960kii waxaanu hambalyo u diraynaa dadka Somaliland madaxweyne hadday tahay wasaaradda hadday tahay labada gole ka guurtida iyo ka baarlamaanka waanu idin salaamaynaa dhammaantiin annagu idinku salaamaynaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan doonayaa anigu haddii aan intaa hoos u dhaadhico aan isa sii sharaxo waxaan ka soo jeedaa gobolka Sanaag degmada Laasqoray taariikhda Somaliland ama gobolada waqooyi haddii aan dib ugu noqdo weligood dad isku mid ah bay ahaayeen isku qadiyada bay ahaayeen beela wada yaala markii dambena isticmaar baa inoo yimi isticmaarkii Ingiriiska muddo ayuu ina haystay waxaana bilaabmay halgan baa bilaabmay gobonnimo doon ah halka gobonnimo doonka ah Soomaalidu qaybta waqooyi halgankii ugu dheeraabay gashay Soomaalida oo 5 qaybood ay isticmaaradii u qaybiyeen waxay ahayd ta ugu halganka ilaa in Cabdulla Xasan laga soo bilaabo Sheekh Bashiir Faarax Omar Xaaji Aadan Ismaaciil Telefoon yani dadkii u soo halgamay haddii ay gacan tahay dagaal ah iyo haddii ay af tahayba waxa weeye dadkaasi gobonnimo ayay u soo halgameen waxay kaloo had iyo jeer ay saacidi jireen walaalahooda Soomaaliyeed NFD hadday tahay gobolkii Hawd la oran jiray hadday tahay Djibouti haddii ay tahay raadiyo Muqdisho raadiyo Hargeysa uu ka horreeyay raadiyo Muqdisho heesa ayaa laga qaadi jiray Djibouti lagu dhiirigelinayo xitaa heesa Canfar ah baa laga qaadi jiray oo guubaaba ah sida dadka loo kiciyo NFD Soomaali galbeed guubaadaas ka socotay markii la soo gaaray taariikh dhowr iyo 50kii ah oo xisbiyadii SNL iyo USP ay furmayeen waxa dhacday odayaal ayaa waxay ugu yimaadeen suldaankii beesha xukumi jiray Laasqoray meesha la yada Xubeera waxay yiraahdeen odayaal beesha dhexe ah waxay yiraahdeen suldaan waxa weeye ninkii Ingiriiska inaynu iska kicino ayaan doonaynaa suldaankii wuxuu ku yiri walba ninkaas wax khayr qaba kuma qabin xaqiina soo joogay haddaad garateen waxa weeye idila garanay oo idila eriyayna halgankii waa la galay 54kii SNL baa abuuray Soomaali jacaylkii wuxuu sameeyay USB da 8kii baa la sameeyay Soomaali jacaylkii wuxuu dabcay in 7kii 6kii 8kii hadba wafdi ka socda gobolada waqooyi ay tagaan Muqdisho iyagoo doonaya midnimo iyo midnimo Soomaaliyeed iyaga oo doonaya koonfurtu marna uma hiloobin midnimo halkooda ay iska joogeen waxa dhacaysa inay calankoodii aynu qaadano inagoo calamo xisbiye aynu lahayn waxa dadka waxa ku kalifayay jacaylka midnimada loo qabo nin kamid ah baarlamaankii waqooyiga baa wuxuu igu yiri markii 60kii aanu koonfur la midoobeynay waxaanu moodaynay kuwa kaleena inay 2 bilood ama sanad ka bacdi ama bilooba inay nala midoobayaan marka hamiga nagu jiray ayaa waqtiga sida ahaa waxa dhacday 60kii markii la isu yimi koonfurta waxa weeye madaxweyne ra'iisul wasaare xukumi jiray Cabdullaahi Ciise la oran jiray baarlamaankoodii 90kana waxa xukumay Aadan Cabdullaahi Ismaan laba nin oo isku beela bay ahaayeen Soomaalinimaasi jirtay markii la isu yimi oo wax la isku darsaday wax dastuur ama heshiis ama si loo qaybsanayo lama kala qoran waayo waqooyiga kelmad baa halays u ahayd alwaxdatu Soomaal biduuni غير shuruud midnimada Soomaaliyeed oo aan shardi ku xidhnayn ayay kula midoobeen marka dad ba hadda waxay yiraahdaan odayaashii yani wax saar oo waqtiyada jiray oo yiraahdo iyaga ina iibiye iyo iyaga ina dhiibay ma ahayna yani maalin waliba waxa weeye waqti waliba waxa weeye wixiisa ayuu leeyahay maalinta waxa joogay oo hamigaasa ku jiray shanta isu tagaysa calan wadaagaysa jidbacankaas baa dhacday okay inaga la doonanay inaga calankoodii qaadanay inaga u tagnay
markaynu u tagnay madaxweynihii way qaateen ra'iisul wasaarihii way qaateen labadii janan ee ciidamada way qaateen wasiirkii maaliyadda way qaateen wasiirkii arrimaha dibadda way qaateen wasiirkii maaliyadda way qaateen waxa weeye si xun oo cadaaladda aad uga fog ayaa reer waqooyigii loo galay taasoo kaliftay 61kiiba saraakiil ka mid ah ciidamadii Somaliland inay gudoodaniin oo ay inqilaab isku dayeen inkastoo inqilaabkaasi fashilmay okay waxay soo socotaba ciidamadu 69kii bay qabsadeen dalkii adigu jabhadaha ka abuurmay jabhadii markii ka abuurmeen dawladii dhexe maxamed siyaad barre madaxweynaha ka ahaa waa la riday markii la riday jabhadii dalkii bay soo galeen anigu jabhadii SNM waxa weeye waxaan aad iyo aad ugu boodoodayaa jabhadii lambar 1 ayay u galeen waayo iyagu markii ay soo galeen waxay warnabadeey beelaha darafyada ka xiga oo inaga dhexdeena nabaday way dadka meesha marayay ma ahayn regular army ciidan caadi ah dhalinyaro iska maleeshiyada bay ahayd xitaa iyagii baa laftoodii markii maleeshiyadu xukumi kari waayo ay magaalooyinkii Burco iyo Berbere iyo Hargeysa iyo ay isku laayeen marka jabhada way ka mudnayd tii xamar soo gashay USB ahayd waxa weeye ummadii xamar joogtay oo dhan bay ka saareen tii SBM2 marka jabhadaha lambar 1 baa siiyay oo iyagu waxay aad ugu mahadsanaayeen nabadgelyadii iyo xabad joojintii ay ku baaqeen okay marxalad siyaasadeed baa la soo galay intaan waxba la isu weydiin dawladdiina dhacday ayaa madaxweyne Cali Mahdi Xamar laga dhawaaqay taasina waxay soo dedejisay dadkii reer waqooyi inay yiraahdeen warmiye inala tashadeen madaxweyne Xamar kaga dhawaaqeen inay iyana 19kii magaalada Burco ayaan dib mar hadii sidaasiba dhacday waxa weeye annaguna gooni baan isu taagayna okay Somaliland waa dhul nabadgelyo ah aad buu ay wanaagsan yihiin waxaan u rajeynayaa horumarkooda inuu halkaa uga sii siyaadiyo waxa dulucda warkayga aan ugu soo dhaadhacaya oo aan toos ula hadlayaa beelaha diga aan ka soo jeedo ee Sanaag iyo Sool diga waxay ahayn dad reer waqooyi ah bay ahaayeen shirar baa bilaabmay hadda lagu wada hadlayo Turkiya iyo London iyo Djibouti iyo Abu Dhabi iyo waxaan lagu wada hadlayo nimankii dawladii ku meel gaarka ay xamar isaga dambeeyay mar walba marka Soomaaliland laga hadlayo waxay diraan dad reer koonfureed iyaga u haysta dad reer waqooyi ee Soomaaliland beesha warsageliya dhulbahanta iyo gadabiirsiyo wax walba ninkaga ma soo daraanin tii maalintii Djibouti lagu qabtay baa u dambeysay waxaan u malaynayaa shirkii lagu kala kacay oo Turkiga ka dhacay oo lagu kala kacay baa waxa lagu daray laba nin oo reer waqooyi ah saddex bay ahaayeen laakiin laba waxay ka soo jeedeen beelaha Sool iyo Sanaag bari Saciid Jaamac Ali Qorsheel iyo Cali Axmed Jaamac Jingeli labadan nin habeenka 26ka calanka la qaadanayo aabayaashood Jaamac Ali Qorsheel booliska Soomaaliland oo dhan buu haystay Axmed Jaamac Jingeli dhiisiga magaalada Hargeysa ayuu ahaa marka nasiib darro ayay ahayd yani martabada ama waqtiga ay Soomaaliland aabayaashood ka gaadheen inay ka hor yimaadaan waxa weeye la yaab bay ahayd marka waxaan u sheegayaa beelaha war hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu idinku saxeexay oo idinku qoray inaad Somaliland tihiin dadkaasina waa dadkii Ilaahay meel idinku wada uumay aad isdhasheen aad weligii wax wadaagteen waxa weeye iyaga Ilaahay iskiin badan garowaad maamul la samaysateen maamulka garowe waxaan u malaynayaa iminka inaad quus ka taagan tihiin anigu beesha aan ka soo jeedo oo warsangeli 4 ra'iisul baarlamaan 4taba waa la eriyay beesha toos baan ula hadlayaa reer laas qoray 4tiiba iyagan xilligoodii dhamaysan ayaa la eriyay tii ugu dambeysay ee xabadda lagala daalay ee ragga laga laayay baarlamaanka hortiisa war inna beelay
reer laasqorayow miyaan damiir idinku jirin maalintii dhaweyto boosaaso wixii ka dhacayay oo magaaladii aad deganaydeen qaybtiinnii la qariyey warina damiir miyaan idinku jirin war haydaaro meeshiile waa laga hureeraa waxa la haddii aana tagtada baran timaadada ma garatidi ciidamadii gaadh haye ee suldaan maxamuud cali shire ee la dagaalamayay sayd maxamed cabdulla xasan baa waxa dhacday maalin ciidamadii inay yidhaahdeen suldaan ma hayn karno cadaadiska iyo xoogga daraawiisheed ee xaggaa boqor cismaan ma aadnaayo ma iskaashanaa wariyii bay hordhigeen suldaankii wuxuu ku yidhi wari misaad ummada garanaysaan oo beeshaa dhex gashay oo ku milantay oo aanta magacooda aan lahayn 5 haddayna ka soo hadhayso 5taasi magac baynu ku yeelanaynaa deegaanka aynu aallo baynu magac ku yeelanaynaa marka waxa weeye beesha reer laasqoray magaciinii waa ku dhintay waxaad ahaydeen boqortooyo weyn oo caan ah oo la yaqaano laakiinse waad ku ba'deen meesha la yada garoowe nin aan gabagiisa dhageystay oo la yada calmadow intii uu ku gabiyey ayaa idinkaga filan waxaan idinka sheekeynayaa taariikh kale 62kii ayaa laasqoray dhistiri la siiyey waftigii ka tegey laasqoray oo xamar aaday oo yidhi dhistiri hana la siiyo uu hogaaminayay intuu xamar ka yimi allah yarxamo cabdullaahi maxamed axmed cabdullaahi qablan oo aan taariikh badan magaalada abudabi kaga qoray oo ahaa ebigii degmada laasqoray ayaa hogaaminayay markii wasiirkii daaqilkii iyo dowladdii lala hadlay dhistarigii waa loo saxeexay dalku markaa 8 gobol buu ahaa waxa la yidhi gobolkee ku darsanaysaan waxaad u dhaxaysaan gobolkii majeerteeniya la oran jiray iyo gobolkii waqooyi bari la oran jiray majeerteeniya gobolka la oran jiray waxa ahaa gobolka kacaankii baa u bixiyay magaca bari ee majeerteeniya la oran jiray bugaagta carabiga ee loo dhigi jiray iyo saasaa ku qoray majeerteeniya waqooyiguna wuxuu ahaa waqooyi bari iyo waqooyi galbeed waqooyi bari burca laga xukumi jiray kacaanka gobolka togdheer u bixiyey waa taariikh odayaashii siday igu yiraahdeen oo aan afkiisa ka hayo ninka maanta ka nool oo aad weydiin kartaan oo aan geeridiisa baqal axmed sheekh saalax ya muddo ayaa halkaa la isku hayay ma xagga gobolka majeerteeniya ku darsanaa mise gobolka togdheer baynu ku darsanaa odayaashii tale waxay ku gaadheen togdheer inay ku darsadaan boosaaso iyo laasqoray intii isu jiraan waa 100 kilomitir laasqoray iyo burcuna intii isu jiraan waxa weeye 500 kilomitir raggaasaa maanta saa ku taliyey raggaa beeshaa yiqiinay laba boqortooyo isdhinac degan baynu ahayn waxna iskuma darsan jirin garaadadeennina waxay oran jireen haddaynu isku wax darsanno walaalaynu nahay waynu isnacaynaa marka hadda waxaan u malaynayaa dad aan sooyaalkii taariikhda waxba ka aqoon haddii aad tagtadii aanad aqoon tan maanta taagan maxay idinku muuqan weydi yacni bahdalaadda maalin walba idinkaga dhacaysa meesha la yidhaahdo halkaa marka waxaan ku boorinayaa gobollada sool iyo sanaag war hadda hilba qaybsiga waqooyi inta aad leedihiin mid baa u shaqo tegey dhuuni raaca horgala ah war halkaasay joogtaayeen la xisaabtama waxaa la yidhi carruur iyo guura raac waxbaa loo kala sheegaa laakiinse isma arkaan duhur cad beesha dhexe la shira ama waxbaad isu raacaysaan ama waxbaad isku diidaysaan dhan unu kala dhaca laakiinse hadda puntland ma tihidin somaliland ma tihidin soomaali kale hadalkeeda iska daa itijaahii ama hadafkiinii ama goolkiinii siyaasadeed ayaa lunsan koonfur waxa weeye weli hees wadaniya heesaha wadaniga ah ay calanka ku saaraan waa wixii reer waqooyiga soomaaliyay tooso ummaddii sidaa u soo halgantay ee sharaftaa lahayd ee suugaantaa lahayd ayaa reer koonfureedku waxay u haystaan dad aan jirin maanta nin reer koonfureeda koonfurta dadka markaad la sheekaysatay waxba ka dhaadhacsan haddii soomaali la midoobo nin reer waqooyihii inaanuba noqon karin madaxweyneba soomaaliya waanu ka noqon karin madaxda somalilandna waxaan kula talinayaa war halkaa aad ka haysaan ka haya waad baahan tahay bakti looma cuno xornimadaa aynu haysanno yaa ictiraaf iyo ictiraaf la'aan yaa
halka aad maanta joogtaaniin ha uga soo dhaqaaqinina da'yarta hadda kacday ee reer Somaliland ee gaar ahaan beesha dhexe waxa weeye maanta dee ninkii burburkii 10 jirka waa 40 jir waa raga talinaya war beesha xamar anaga joogi jiray anaga wax naga soo mareen nin kasta waqti badan haddaan taariikh badan idinka sheekeeyo iyo wixii jiray waxa weeye sida webigaan idinku butaacaya idinku burqaraya war dhalinyaro ku yaacaysa xamar baan arkaa war ka jooga baan idin leeyahay ka jooga taariikhda aan ka soo sheekeeyay baa idin dambaysa hargeysa iyo burco iyo xaafado yar baa loo arkaa wada dhigayso dhalinyaradaana waxaan leeyahay war ka jooga baan leeyahay beelahaas waxaan kula talinayaa war halkaa meelaad kaga magac runtihiin oo kaga muuqroontihiin ma jirto beesha sool shalayto nin khudbadeynayo wasiirka arrimaha warfaafinta Saleeman Cali Koore wuxuu yiri war haddii qol inuu dadka Soomaaliya ay rabtaa waa beesha dhexe haddii xamar la tagana iyaga wax ka noqonaya ya barigiiba markaynu tagnay iyaga ra'iisul baarlamaanka la siiyay war hadday qalwo inuu ku jiraan nimanka alla xisaabtano halkaasayna dantiina iyo ayrintiina inuu ku jirtaa siyaasaddu waxa weeye inaad dabooshid baahida ummadaada inaad dabooshid weeye marka meel aad magac xun aad waxba kaaga siyaadeen oo magac xun ku taalo wallahi reer Sool imise askar Soomaaliland laayeen oo beesha dhaxa ah oo dawladdu magtii askariga qoysku ka dhintay siisay dhowr iyo 9 boosaaso waxaad ka dhacday waa ogaadeen xaggana haddii wax lagaga dilo lagama garxo labana is weydiiyo waa taagnaa garwe maalintii labada askari aroortii iyadoo la caleema saariyo suldaan ciise reer garwe fiidkii lagu dilay laba ku xukunaa oo beesha Sool ahaa jeelka hortiisa lagu dilay oo laba cali isu weydiin marka waxaan ku soo hadalkayga waa qiirooday marka waxyaabaha ii muuqda ayaana qiirada iga keenay waxaan doonayaa hadallo badan inaan idin soo duubo haddaad beelaha tihiin marka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa warooy tashada oo dantu meesha idinku jirto waa inaad aad garataan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa maalin weyn waa 26 June 2020 waa sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii xorriyadda Jamhuuriyadda Somaliland aan ka helnay Ingiriiska. waxaan joognaa magaalada Seattle, Washington, Mareykanka, anigoo ah Fuaad Maxamed Xuseen oo ay la fadhiyaan dhammaan ururka Haldoor madaxdiisa iyo guddidooda iyo dhammaan ururkoo dhan. waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin iyo salaan qiimo leh uga diraynaa shacabka reer Somaliland, Jamhuuriyadda Somaliland meel walbay joogaan, bari ilaa galbeed, qurbe iyo daljoogba. waxaan leenahay maanta waa maalin weyn, waa maalin qiimo badan, iyadoo maanta ahayd maalin aanu ku xusno nay fagaare iyo meel maqaam buuxa, laakiinse waqtigu aanu inoo saamixin oo coronavirus lagu jiro. waxaan jeclaanay inaanu isku nimaadno, aan iskoobno inagoo xeerinayna nay social distance-ka Mareykanka. sidaa darteed haddana ilaahay baa mahad leh, waqti fiican baanu isku helnay. halkan waxaan hambaliyo sanaan uga diraynaa shacbiga reer Somaliland, madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland meel walbay joogaan, dhammaan qaraabadeeda, cid walba. ururka Haldoor waa urur u kacay dhalinyarta iyo qurba joogta reer Somaliland ee ku nool Seattle. halkan dhammaantiin waa idinka salaamaynaa. taariikhda 26 June halkan laguma soo koobi karo. anigu waxaan ahaa dhalinyartii dhalatay xilligii dagaaladu socdeen. marka anigu 30 sano u dambeeyay baan
ka sheekayn karaa waxaan u joogay. Anigu waxaan ku caqliyeystay, ku koray, wax ku bartay Jamhuuriyadda Somaliland. Wax Soomaaliya oo aan aqaano iyo aqoon aan u leeyahay iyo calan meel ka taagan yahay ma arkin. 30 sanaba intii aan qurbaha joogay, intii aan Somaliland ku noolaaba, anu Somaliland baan aqaanaa, cid kale ma aqaano. Dadka Soomaali weyn u ordayana waxaan oran lahaa Soomaali maanta halkay taalo waa taqaanaa, Soomaali waxay ku nooshahay waa taqaanaan. haddaa shacbiga reer Somaliland leeyahay maanta xorriyadmeeda waan haysanaa, cid aan maanta uga baqayno Somaliland ma jirto. aad iyo aad baan idin salaamayaa. dad badan baa iga dambeeya, hadalka waa soo koobayaa. salaamu calaykum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo magacaygu yahay Maxamed Yaasiin Cismaan oo ku magac dheer Abwaan Hidaayo, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha Somaliland dal iyo dibad meel kastay joogaan, madax iyo mijaba. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xubnaha iyagan maanta halka isugu yimi oo ka mida ururka Haldoor. ururka Haldoor ma aha qabiil, ma aha xusbi, ma aha reer. waxa isu keenay national issue iyo inay ka shaqeeyaan danaha dalkooda iyo ummadooda. haddii aan wax yar ka iraahdo, waxa looga baahayay qofka Somalilanderka mucaarad iyo muxaafid ku doonayaba ha ahaadee. horta qofka bini'aadamka waxa laga rabaa inuu laba qodob baa laga rabaa inuu yahay qof diin leh, nationalismna oo wax aaminsan dal leh. labadaa qodob qofka bini'aadamka ay hadduusan lahayn waxba ma noqonayo, waxba ma soo baxayo. ta maanta isugu kaayo keentay halkan oo aan isugu dhimi waxa weeye nationalism. maanta waa maalin weyn, waa 26 Juun. waa 60 jirsatay Somaliland. dhibaatooyin badan bay soo martay, hawlo badan bay soo martay, laakiin maanta waa nabad. 6 gobol oo Somaliland 6duba waa nabad. 40 waa 6 gobol iyo 40 degmo. maanta waa nabad. ka doontid ayaad ku noolaanaysaa, tegaysaa inay sii adkaysato nabadeedaas oo ay sii horumariso dowladnimada ayuunbaa laga doonayaa. waxa Somaliland ictiraaf bay u baahan tahay. arrintay u ooman tahay waa ictiraaf. wadahadaladii ugu dambeeyey ee Jabuuti ka dhacay waanu bogaadinaynaa khudbaddii madaxweynaha iyo doorkii uu ka galay. waxaanu saluugsanahay oo keliya waxa weeye qodob ku jira, qodobkaasoo ahaa qodobka isdhexgalka. ma garanayno qodobkaa macnihiisu waxa uu yahay, waayo waxaanu ognahay Hargeysa maalin walba waxaa ka baxa intii la doono basas iyo gaadiid kaleba hadday tahay waxayna socdaan ilaa Garoowe iyo Gaalkacyo iyo dhinaca Soomaaliya ay u gudbaan. qodobkaa waxaanu ku saluugsanahay wuxuu dhabaha u xaari doonaa intii dhibaatada jeclayd, intii inay isku xoqdo Soomaaliya iyo Somaliland ama dhibaato ka dhex abuurto ayuu qodobkaasi u furayaa waddo cusub. waxaanu leenahay waxay saaran tahay awoodda iyo dalkan loo egmaday madaxweynaha. madaxweynaha ayaa mas-uuliyadda qaadaya wixii halkaa ka soo noqda. waxaanu rajaynaynaa guul inay Somaliland ictiraaf hesho. Somaliland Soomaaliya la midoobi mayso, waa dal 30 jirsaday ama 60 jirsaday. haddii aan halkaa maanse yaroo aan 2014 tiriyey bej ka soo qaato, yaa waxay odhanaysay aan hoos u sii dego halka ay u darantiyo istu taago dakharada. Soomaaloo darkaa taal annagaa ka durugno danna waanu moodno dibna aanu laamayn. anigoo dal weyn oo webiyadu durdurayaan ku dabaalanayo mar baddaan u baxayo door aan ku leeyahay iskamaana soo dudin. tani waa duruufoo dan baa meesha keento inta ay dagaal iyo wada dooxatadan tahee dalabaabiyaysee cidna aanay daynayn. dadaal waa halkiisee docinaan ka joogaa, doqonniino maahee waa shay daruuriya. qof haddii dadnimadii iyo damiirkiisu doorsamo walaalbaa dabiibee, aniguna docdaydiiyo doorkii aan ku lahaa dawga kama habaabine. kuwa deeqda bixiye doonyaha waxqaadiyo diyaaradaha guuxiyo dabaabaadka iibshaa ii diiday anigoo in dadkaa la doojiyo wanaag aan ka doonin. halkaas aan ka taaganahay. Somaliland hadday ictiraaf hesho, Soomaaliya iyada wax ka qabanaysa.
وإذن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مر لبعض وقدومي عيدروس محمود يوسف يا أوركي هالدور أنا جا أقول لي مع أوركا هالدور قرن من السمالان أنا مر لبعض ما أنت waxaan isugu nimi afar qodob inaan ka soo raqab Soomaaliya abu anka yaqoon kuba iyo rag iyo dumarba xuska 60 guurada ka soo wareegtay 26kii June maalintii ay qaatay xornimada Jamhuuriyadda Somaliland ee barakaysan 18 May iyo 26 June waxa weeye qof waliba uu garanaya dad badan baa isaga riyaaqa oo iska xambaarta haddii aan iyar isira dul taago qarannimadaas maalinta 26 June wax weeye qiiro badan iyo ilmo badan iyo xanuun badan ayaa meeshaasi ka dhacday wuxuu ahaa wadankii ugu horeeyay shanta Soomaaliyeed calan Soomaali leedahay laga taago Somaliland maalintii dhaweyd ee uu madaxweyne Farmaajo 26 June ka hadlayay baa wuxuu yacni si aqoon la'aani oo ama indhalaan badan ku dhahan tahay wuxuu dhowr jeer uga jawaabay isagoo aan xusin meeytaadkii halkaasi gabayada ka tiriyay haliyada mujaahidiintii Cabdullaahi Suldaan Timcade Allah u naxariisto qabrigana ha u nuuro iyo raggii badnaay halkaasi xigmada ku dheehnayd ayuu gabaygiisii sii qaabto markaas uu sidii yacni isagoo xitaa historyga soo akhriyo wuxuu yiri kana saar waay wuxuu yiri Cabdullaahi Soomaalo isu cunayso saqda qayla dhawaaqdo sulub la isku cabayso hadba soo la cabaariyo sareeda dami weede kii safiyay qabaayile safuraala ka yeelay aan sidoo yahay eegna ka sareeyo manasqaano ka nasiib ka nasaar xigmadda qofka bini'aadamkii ama qadiyadda meesha taale hadii aanu garanaynin ama qarannimadiisa aan ku santaneyn hadii gooraan inuu bowbowsada waa wax meesha ka muuqata taasi waxa ku tusaysaa aqoon la'aanta ka haysa qarannimada Somaliland dib markaan uu eegno haddana aan u yar isira dul taagay iyadoo waqtigu nagu gaabiyay shirkii Djibouti ayaa horta waxaan hambalyeeyaa dhammaan shacabka Somaliland 60 guurada ka soo wareegtay 26 June 1960 أن مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن مجاهد موسى بيحي عبد الحديد أيها إسقوا وحلقة سيكا شيكي قطبات سعودي سيدي 8 minute أو يضرب أول بتعبان إسا and beginning to the end أن مدحوين فرماتشنا وهلقة سيكا شيدين أركا كرنا إنه ماشاسي أنا حكمت بدن أما بيس بدن أنا وكهينين وحو كلية وهمبلية وشيدية delegation كمياشا مرية مدحوين إسماعيل عمر قيلة and wixii laga hadlayay wuxuu Muuse ka hadlayay waxa Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyo wasiirkii halkaasi Siciid Salub iyo wasiiradii marayay delegation halka marayay wasiirka arrimaha dibadda hadii kale Yaasiin Xeer Fartoon iyo ragii halka marayay wixii ay la socdeen iyo xigmadii ay sitay qodobada ay ka baxday walaalaheena koonfureed ama Soomaalida koonfureed ee heshiiska soo dhaweynayay heshiiskan oo ah dawlad soddon jirsatay oo gabadhii beriga dhalatay deeminka ay 10 caruur leedahay ayba iyagu xagasho xaafad ka duday in islaantiis ka duday baba iyagu malaha warka mareynaya oo waxyaabaha aan munaasibka ku ahayn oo aan la isku soo dhawaan kareyn waxa weey nabarka hadii guudka laga dhayo ma bogsado ilaa iyo loo dhaadhaco gudihiisa oo gudaha laga dhayo hadaba walaalaha koonfureed waxaad moodaa wali alankan shirarkan iyo siimaatinkani inaanay caduur dhowdhowdu uba dhacsanayn oo aanay dareemahayn qadiyadan soddon jirsatay ee Somaliland iyo qarankan dhisan ee ciidankiisu toban laabka maalinba difaacday uga soo baxayso darar weyne iyo xubnaha kale yacni dhisan dhan walba ka dhisan dhaqaale ka dhisan baarlamaan ka dhisan ciidan military ka dhisan police ka dhisan asluub ka dhisan yacni inanku marmar waxaan israa waan dawxay waxaan sameeyay maraa dadka qaar baa xanuunkan madaxa ku dhaca uu yara haystaayo political meel qaldan la maraya walina wuxuu markaa imika habeenkii khudbadda Farmaajo ku daray walaalaheena reer waqooyigeena ka dhalatay يعني ما كم حصيو إن أي كذا جمهورية الصومال أنا أخذت قرني وح صومالي اللي يرابا كانت إنتي تحسين حكت سيسا يستان كامر دليشة أما كإن دلا أنت political كصوماليا كالفقاشة كنيسة وكإن دلا هي مستر محمد عبد الله فرماتش مركان وحنا لها إن ده كلا فرو هوس dadka u soo wareysay wax badan soo dabatana xal la isugu yimaado dhexdhexaada ay shanta Soomaaliyeed ku kala maqan yihiin halkan aad ku shiraysaan Djibouti waa Soomaaliya
oo xidigtay ka mid tahay NFD xidigtay ka mid tahay kilku xidigtu ka mid yahay Soomaaliya xidigta ka mid Somaliland waa jamhuuriyaddii keentay in xornimo Soomaaliyeed laga hadlo marka taa haddaan halkaa ku dhaafo qadiyadda Somaliland ma ahan mid haddii badka leeyahay midnimo maanta ku baxday ee waa qaranka horeeyay 30 sano dhisnaa aqoonsi Somaliland cidnaba ugama baahna Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka kale adduunka aqoonsiga laga sugayo aqoonsi Ilaahay baa laga helaa waa Ciidruus Maxamed Yuusuf waxaan leeyahay mar labaad hambaliyo dhammaan shacabka Somaliland aniga hadalka soo koobaya ayo Seattle Washington mar kale iyo kulantina dambe insha Allah biidmillah karim hablaha iyo dhamaanba waan uga mahad celinayaa akhyaarta isugu timi soo dhaweynta 6 Juun hambaliyo